waxay leeyihiin maxamuud waxa la geeyay Sangub baa loo dhiibay oo waxa laga dajiyay jigjiga aabaha anagu maanan oranin hala geeyo xaj maanan rabin maanan ku tala jirin aabay waxaan u sanayaa nin iska celin kara ma aha lug buu ka cabanayay lug baa jabnay waxa la geeyay Sacuudiga markii la geeyay aabahay anagii waxay noqotay arin ugu maaragtay oday sida u xanuunsanaya dawladda Soomaaliya inay xil aad isaga saarinay dhahdo arano codsiga meeshu ka yimid cid codsatay waxba igama gelin aabay xanuunsan baa la geeyay magaalada Maka marka hadda dawladda Soomaaliya waxa ma oranaya laakiin aabay xanuunsan bay geeyeen barnaamijka soo socday la yiraahdo hana qeexin wuxuu diiradda saarayaa Maxamuud Cabdullaahi Sangub waa abwaankeennii qaran oo magaalada Muqdisho laga aftuubay abwaan Maxamuud Cabdullaahi Sangub waxa laga dajiyay isagoo aftuuba magaalada Jigjiga waxaan idin la wadaagi doonaa aftuubkaasi sida uu dhacay iyo sida loo fuliyay iyo shakhsiyaadka fuliyay waan idin la wadaagi doonaa waxaan aad uga xunnahay inaanu arrintaas wararkaas aan idin soo gudbino laakiin waxa jira waxaanu ku qasbannahay inaan ummadda la wadaagno abwaankeennii weynaa waa Maxamuud Cabdullaahi Sangub wuu xanuunsanayay anigu ayaana booqday oo aan waraysi ka soo qaaday wuu iska fiicnaa laakiin waxaad moodaysay xoogaa in uunan arrimaha qaar lagaba qarinayay waxaan weliba idinla wadaagayaa gabadh isaga dumaashidii ah oo dhimatay oo qola Mooryaani dileen waa maalinka aan waraysiga ka qaaday Maxamuud Cabdullaahi Sangub oo tacsideeda loo fadhiyay Maxamuud Cabdullaahi Sangub waa laga qariyay aniga la soo qaaday hoosta laga gujiyay haw sheegin baa waxa laga yaabanaa inay caafimaadkiisa wax gaarsiiso isku soo wada duub Maxamuud Cabdullaahi Sangub waxa la yiri waxa lagu geynayaa xashka waad soo cimraysanaysaa baa lagu kaxeeyay ka bacdi waxa laga dajiyay Jigjiga Maxamuud Cabdullaahi Sangub yaa la aftuubay mise lama aftuubin waxay u badan tahay wararka la helaya in la aftuubay haddaan hay dhaka weyne media waxaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagayaa in marar badan Maxamuud Cabdullaahi Sangub laga marti qaaday magaalada Jigjiga oo uu diiday waa inay ilay uu yiri ma imanayo Sangub waxa loogu taag waayay inuu Jigjiga tago waa loo yeeray waa 10 mar wuxuu yaanu Soomaali baana isku soo wada duubo markii u dambeysay waa nasiib darro Sangub oo aan ogeyn in Jigjiga laga dajiyo arrintaas ma dambi baa ma deelqaaf baa miyay saxan tahay idinka Soomaaliya ka jawaabi doona mid kaliya aan ugu idin sheegaya abwaankeennii qaran Maxamuud Cabdullaahi Sangub isagoo raalli ka ahayn inuu sogaaday inuu Jigjiga joogo isku soo wada duub Jigjiga waa dhul Soomaaliyeed bale iyo baas midna kuma og laakiin takaliyan huba waxay tahay Sangub inaanu doonayn inuu Jigjiga tago ruuxna wuxuu doonayn laguma qasbo aakhirkiina Maxamuud Cabdullaahi Sangub halkan aad joogta miyaad garan markaas yiri waa Muqdisho waa xamar weyne saalay maaha waa Jigjiga arrintaas aad uga nax waxa weeyaan waxa qalad ah in maaragtay abwaan dhiirana uu maanta soo galo la soo diro oo isagoo aabay ka hadlay Sangub baa la afduubay waxa loogu sheekay xajka lagu geynaa Sangub see loo afduubay anaga nool wuxuu dhalay oo dhan baa halkan jooga he does not need anybody cidna uma baahna aabay cidna uma baahna aan ilaahay waxa kaliya uu bulshada Soomaaliyeed uga baahan yahay waa duco wada ogtihiin ilaa iyo 2016 waxaan xanuunsanaya aabay wiignu fiican yahay wiignu iska xanuunsanaya waa ruux macaan leh waa ruux dhikar leh aabay misig baa jabtay markii la keenayay way jabnayd waxa laga soo qaaday Soomaaliya isagoo jaban dawladda Soomaaliya canaanteeda leedahay oday weyn oo jaban in la keeno ma aha Mako isagoo jaban baa la keenay aabay aabay uu jabnaa dawladda Soomaaliya arinta waxa weeyaan nalgalameena tashanin waxba namayna weydiinin isagoo lugta jabanta la keenay cimradii xataa muuna marin aabay muuna cimraysanin xanuunkii bishii May 31 ayaa la geeyay dhakhtarka waxa laga soo saaray maalintu soo baxay 2 cisho ka hor waxa uu xanuunsanaa uu ku jiray malaha 14 cisho dhakhtarka
عمرنا مونا أركن محنا مونا أركن ونا حنو سنة انت عدا ما سوق بو حليا هاي وربا شيغيا اولي نينكي ابوانكا اها اي سنغوب اها جيجيغو inta la yiri xajka loo geenayo waa soo cumreysana soo bax ayaa markii halka loola duulay la soo wareejiyay oo jijiga fataq laga siiyay buuggii oo qoray ninkii sodonka Itoobiya hijrada wuxuu yiri waxaynu mataqaana weligeen raadinayna afar qofood ninkii qaadaya calankayga nuurow haddii aan soo noqon Allah ayo ku nabad yeel ee kaamil cawaale ninkii Axmed Xasan oo ka ahaa gabadhi Seenax Ajacali Baxsan ahayd iyo Maxamed Cabdullaahi Sango afartaas Itoobiya weli raadinayso oo ka way laqeen kaamil cawaalna way laqeen Sangubna hadda la geeyay baa la leeyahay meeshii waxa dhiman waa Seenax Ajacali Baxsan arinta haday jirto aynu iska diidno Sangub maskixiin uu iska xanuunsaday uu asaasaqay ما فين عافمات كستامية ما هاي هدي انت لقى قاضي حمر تجيجي لقيو يرون ايتهاي وحي كهوري ماني صدر دارين كي اوكشيغي او يري عمال على إتوبيا كتاغي هيان ليقو عاصر قفو مركو عافمات قوة حكوطة دارم عابها يوغا احنا والله اقبلا نكا نين هليو وحاولي جديدين وقميسي كراعو او واحكستا لغو قريي انا وحاني هاد سوماليو اقوان سيقو وقلب نقح توئي اينو قرب استاغنو أبوان سجوا أينو بتقبكيسة كشقينو لعنا هلو أروريو عافيمات هندي أما دبلها كلا تركي هلو قاضو هلك هلو صد بيبو وبلا توفيق دار عسوح اللي جاي دبيش جدها ومر حضو إني عياسيسو هدو الله ما أنت مرت روح أو عافيمات قبو وحلقة يعملها إنه سولي حمر كتاجين حمر إنه سن كتاجين بالغة يابا أبا he loves حمر He loves Mogadishu. He loves to be around Hobalada Waberi. وجعلها. وحنا هاي نفيه وحنا هاي نفيه ناعو قبوي نيمعي برواقي سبب له نقادي نور الشباب لوبي نعسوق ميسيقن نبرد قرصونيو معاني قادينيو تقول بين فضا نبض ما وداقي ناعو قبويو نيمعيو برواقيو سبلغو نقاديو نور الشباب لوبي نعسوق ميسيقن نبرد قرصونيو معاني قادينيو يقول بين فضا نبض ما وداقي ندربان هرو قلي نيدي دوامين ندربان هرو قلي نيدي دوامين هديان سنقل على كيغ نورو الله يكون بدقالي ندربان هرو قلي نيدي دوامين ندربان هرو قلي نيدي دوامين هديان سنقل على كيغ نورو الله يكون بدقالي
وحنهي نفسي هري وحنهي نفسي هري من نفسها بقدا نفس ما عشي ناخذ ياشي نعب كان لا شاء هدي نبات لواينا دنك الصباح نقطة نعسيقا مليدين هلو نحريسنا وما قالوا من نسوها بالقدا نفس ما عشية ناخذ ياشي نعب كان لا شاء هدي نبات لواينا دنك الصباح نقطة نعسيقا مليدين هلو نحريسنا وما قالوا ندربان هرو قلي نيدي دوامين ندربان هرو قلي نيدي دوامين حديانا سنقل على كيغ نورو الله يوك نبت قالي ندربان هرو قلي نيدي دوامين ندربان هرو قلي نيدي دوامين هديانا سنقل على كيغ نورو الله يوك نبت قالي